بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدى سوماليات مركز الدنيا دعالة أد كتاج أد شوكتان سلامتي إسلامك إنكو سلامة يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك سوماليات سومالي محمد وحان ربا ما أنت ودن كوحو مرها يا كالجور كاسنا وطان حلق يهبين ورقان كهد لاي marka waxaan rabnaa wax kasta in loo dhabar adeego waa inaan ognahay ninka annagu aan soo saarayno iyo ninka annagu aan rabno ninka wax noo qabanahaya ninka wadankeena wax ka dhisahaya ayaan rabaa anigu marka waxaan leeyahay Soomaalida roonaba rabbiya og laakiin waxaan leeyahay dhabar adeeg ayaan u baahannahay waa inaan waxa aan rabno annagu oo qofna noo tilmaami karin oo annagu aan raadsanaa oo qof bil aadan wax ka maqlin ciyaalka yaryar oo dariiqyada jiifa dadka buulasha ku jira oo maalin kasta maxamed cabdullaahi farmaajo oo baabi'inayo leeyahay $3 aan siinaya $8 baan siinaya oo waayeel ciroola ay ka wada buuxaan oo dhibkaad aragtay in soo mariyay is ilaaliya aan leeyahay chance dambaad helaysaan malahan dawladdu hore u soconaysa ninkaan 4 sano dib noo celiyay wax laalay wixii xasan sheekh maxamed oo noo soo dhisay ayuu noo dib noogu celiyay marka maanta waxaan jeclahay inaan nila wadaago shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka aaminsan yihiin xasan sheekh maxamuud waa aabihii Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa horseedkii iyo horsocodkii Soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta uu soo qabtay nin madaxweynaha oo Soomaaliyeed oo soo qabtay maxamed siyaad barre Allah ka dhigay ma jiro dadkee waxa sababahaas in ilaahay rabaa inaan inii sheego madaxweynaha hadda maanta jooga waa naqalday oo qalad weyn ayuu nagu sameeyay wuxuu nagu sameeyay oo kaleeto ogtihiin oo la inkiri karin wax la yiraahdo fraud muxuu yahay macnihiisu waa tuuganimo iyo qiyaamo iyo ma arka qaa'inul wadan ayuu maxamed cabdullaahi farmaajo asoo wadani iskaga kaaya dhigahaya asoo Ethiopia iyo Kenya nacayb u qaba oo og waxay ku sameynayaan in ma aragtay Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed oo Kenya ku nool ama shacabka Soomaaliyeed oo Ethiopia ku nool niman ciidama oo Ethiopian waa kuwa intay budda qaateen wiil yar oo Soomaaliya naclaamu dhaq madaxa ay ka garaacayeen ardi sababa dhexdeeda oo Facebookyada saas u marayay waa laba nin oo ciidan Ethiopia waa ka adagna laakiin waxa noo soo horseeday oo ilaa maanta ay baydhabo u joogaan iyo koonfur galbeed ayaan garan la'nahay marka waxaan aragnaa madaxweyne yar oo qafiif ah oo Soomaalinimo aynu ku jirin oo laakiin fraudnimo ay ku jirto ayaa maanta wadanka haysta midaan inii sheegaya hadaladayda intaan u sii dhaadhicin waxaan rabaa shacabka Muqdisho today jooga waxay ka aaminsan yihiin ninka la leeyahay xasan sheekh maxamuud waa aabihii wadanimada xasan sheekh maxamuud waa aabihii dhisay gobolada Soomaaliyeed waa aabihii sugay aaminka iyo wixii lagu aaminay dhowray iyo dhaqaalihii wadanka ninka kabciyay marka waxaan rabaa kaasafoortada maalintii uu ka deganayo lagu wareejinayay lacagii ku jiray waa wada ogeen annaka dhan markii life baa loo sheegay oo dawladda looga tagay oo dawladda farmaajo lagu wareejiyay marka walaalayaal waxaan rabaa inay ila maqashaan shacabka Soomaaliyeed maanta Muqdisho waxay ka qabaan ila maqla waa soo dhaweynaya walaalkay macaan adigana ku jirto marka shacabka la hortag waxaan dooranay siyaasiyiin xanuunsan oo baaba'san oo mabda daldan lagu ku baaba'ay aaminsan in la sheego in dadka fikirkooda laga hortago la baabi'iyo musuqmaasuq dhicitaan leesagu daro ayaan dooranay waa tii aan ka shalaynay wadanka sooma marin madaxweyne ka xum siyaasiga xanuunsan ee armaajo hadda bal ila dhegeyso shacabka waxa ay leeyihiin walaalkay wayaan su'aal iskugu fiican ma dhegeysto Soomaaliya lagu guuleysan maxaa yeelay ballanqays waxa kamid ah inuu heer maamul goboleed oo dhiso runtii taas waa lagu guuleysan oo dhameystiray federalismka oo meel kasta in la gaarsiiyo maanta waxaan marnaa aan ka tagno 4.5 aan ka tagno oo xildhibaankii ee doortay bulshooyinka oo doortaan oo codka taqalba codka uu siiyo halkaas maanta marnaa runtii xaliga xashir maanta waxa la taaban karo hiigsiga la taaban karo oo cad buu ka tagay meesha kaga tagay xasan sheekh waxyaalaha lagu xasuusan karo oo uu dalka ka qabtay hadda waa hoggaan 4 sano oo afartii ugu hormarsaneed dawladda Soomaaliya sida ay dhacday 4 sano oo la taaban karo oo wax rasmi ah weyn la gaaray sida dhismihii dalka in la gaaro federaaleynta in la gaaro shaqooyin badan oo maaragtaa haday tahay ciidamo dhisid haday tahay wax qabad waxaan dhihi karaa xasan sheekh wuxuu gaaray ama nasiib ilaahay uga dhigay in uu Soomaaliya meesha ugu fiicneedo hadda dawladda sida ay dhacday inay gaarsiisay anaga naloo diiday inaan helno federaal inaan helno dawlad maxaa dawlad gobolka gaabna loo diiday 6 sano anaga hadda bay dhabanay naay baa ku fadhiya
raadineen haddana wuxuu noo suurtogeliyaa xasan sheekh maxamed inaan koofa helno dowlad goboleed gobolladeena maadaama aan helnayna waxaan leenahay xasan sheekh madaxweynaheeniyow waxaan rabnaa inaan mar labaad ku soo noqotid waxaan rabnaa mar labaad in aan kuu sheegnay in reer baydhaba ay diyaar ku yihiin inay kusoo dhaweeyaan kulana shaqeeyaan adigana waxaan kaa doonaynaa sidaa hadda u dadaashay dadaalkiina sii laba laab ballan waayo taas waa wax muuqda waxaana ugu dambeeya raadkeeda maanta la sheegi karaa inuu dhammaystiray habkii federaalka ahaa oo maaragtay loogu talagalay waajibaadkii dowladda ay lahayd in maanta uu dhammaystiran yahay marka laga reebo caasimadda magaalada muqdisho oo maqaamkeeda u dhiman yahay waxaan leeyahay dowladdaas 4 sano howl muuqato oo xagga maamulka xagga ciidamada sidaan ognahay dhismaha ciidamada tababaradooda tayeyntooda maanta waxay maraysaa ciidan soomaaliyeed oo tayo leh oo meel laga bilaabo leh waxaa kaloo jira in nidaamka maamulka lacagaha ood ogtahay IMF iyo World Bank inay ku amaaneen dowladda federaalka inay toosisay xasan sheekh maxamed jira musuqmaasuq faraha badnaa oo lacagii aan la ogeyn oo ay toosisay waa tamaanka nagaysato ogaad madaxweynaha waxyaabihii hadda lakaamaana koro ku mid ah waayo wali dareemo kornee maamul goboleedyada oo la dhisa wali la hakamaray marxalad ciidan adag isqabqabsi oo dhinaca qabiile isqabqabsi fara badan xaalado fara badan oo mahay wali hamaray xaalado siyaasadeed ka jira tiyadaha aan dhabar adeegi wali may la raayisa ku mira dhaliyay federaalki kowmadiisa madaxweynaha dastuurkii ergada Soomaaliyeed ama Soomaaliyeed aanseedi in wadanka ismaamul goboleedku ku soo bay ka guuleysaday record horta dowladdu waa runtii maalinba meel joogtaa sidaan aan ugu arko maanta waxaan maraynaa xilliyadii ugu wanaagsanayna maraynaa 22 sano wadanka burburka maalinna meel kama aadin wax badan aan soo marnay oo laga sheekay karin maanta waxaan maraynaa dowladnimo ummad dhisamaysa ummad horumar gaaraysa ummad yani ummadaha kale meelaha dunida ay hiigsanayaan rabaan inay hiigsadaan ayaan maanta maraynaa insha allahu magaciina lagu yaqiin iyo waxaan haajirnay wax ka fiican aan noqon doonaa insha allah madaxweyne xasan sheekh waxaan ognahay haddii hadda uu nasiibkiisa waa shacabka maanta today muqdisho jooga weeyaan waa this morning waa direct madaxweyne kale uu ku soo baxo wiilkaan isku xirannahay waa direct sida aan ku xasuusan doono waxaa ka mid ah wadooyinkii baabaa ahaa ee caasimadda Soomaaliya oo aan dadku ay ku shikan jireen meeshan inay laami tahay inaysan ahayn asagoo hadda ka dhiga wadooyin la wada yaqaano oo laami ah oo waagii hore dowladda Soomaaliya ay jirtay sidoo kale waxaan ognahay galmudug waxa uu ka qabtay sida uu ugu dhabar adeegay waqtigan waxaan ku xasuusan karnaa maamulkan jira kow awalan inuu yahay maamulkii uu dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa insha allah xasan sheekh maxamuud meel loo lido taariikhda iyo runtii xasan sheekh wuxuu ahaa waqtigii hore wax badan og waqtigiisa u huray shacabka Soomaaliyeed ka fog qabiil iyo eed iyo ceeb iyo farximo iyo tuugadii ayaa waxayna dhaheen xasan sheekh waa tuug ayaana dhaheen xasan sheekh waa tuug shacabkii way iska raaceen gaf baan geysanay maanta waxaan ogaanay inaan nimco haysanay maanta waxaan ogaanay ilaahay inuu na siiyey madaxweyne sharaf leh oo nooga dhigay maaragtay dalkaas burburay inuu soo kabto oo dadkii adduunyada si u nool yihiin u noolaadaan waa nin mutacallim ah waa nin aan aaminsanayn qori waa nin aan aaminsanayn dagaal iyo tuuganimo marka tuugadii buugga qoreen oo dhaheen in la dilo mudulood iyo harti iyo isaaq xaq bay ahayd oo difaacayay kaligiis taliska adeerkiisa ahaa ayaan dooranay ayaan gurbaan u tumnay waxaa naga raacay maanta waa isla ognahay waxaa mahad gaar leh mudane dani sharafta uu istaagay waxaa mahad gaar leh oo kale mudane axmed islaam axmed madoobe insha allah siyaasi xanuunsan waa inaan ka tuurnaa meesha dalkan aabuu leeyahay qabiil ninkeedaa dhammaystiro waa inaan soo celinaa waa kugu soo noqonaya isig wax yar walaalkay wax yar isig waa kugu soo noqonaya marka waxaan rabnaa tuugadii wadanka ayaa shalay markii uu xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha ahaa ayaa waxay noo dabaaldegahayeen ee idaacadaha iyo facebookyada u fadhiisanahayeen aabbihii wadaniga ahaa
inuu khaa'in yahay imbeshi khaa'imiintii ayaa waxay ka dhaadhiciyeen soomaalida inuu xasan sheekh khaa'in ahaa xasan sheekh khaa'in ma ahayn kuwa maanta haysta oo shalay naga dhaadhicinaya inuu khaa'in yahay qaa'imiintii baa maanta waddanka haysata waxaan aragnay burbur waxaan aragnay baahi waxaan aragnay roob aan dadka looga maciinaynin oo dadku ay ku baabi'een oo biyo qaadeen oo dhaqaalahoodiina jeebabka lagu ritay waxaan aragnay inaan cuqubo ka galnay xasan sheekh maxamuud soomaaliya maanta soomaaliya waxaa haysta cuqubadii aad ka gasheen xasan sheekh maxamuud ayaa ina haysataa aabbihii qoslayey aabbihii dimuqraatikada ahaa aabbihii wadaniga ahaa aabbihii u hagar baxay aabbihii u ilaaliyey dhaqaalihii uu ku wareejiyey maxamed cabdullaahi farmaajo maanta uuna shilin ku jirin akoonka soomaaliya marka maxay tahay waxa aan ka hadlayno tuugadii shalay naga dhaadhicinaysay ayaa maanta waddanka haysata oon u jeednaa inay tuugan yihiin marka maxay tahay waxa aan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa inaan tuugadii shalay naga dhaadhiciye xasan sheekh inuu tuug ahaa laakiin ayaku ay tuug yihiin inaan waddanka ka qabanno inaan waddanka ka saarno inaan la xisaabtanno barke xasan sheekh dilaa ma ahayn xasan sheekh dad ma boobin xasan sheekh dhaqaalaha waddanka farmaajo ku wareejiyey lacaguhu ku wareejiyey caddadoodana waa la soconnaa qaramada midoobena waa ogyihiin waxaa lagu wareejiyey dahab waxaa lagu wareejiyey dheeman waxaa lagu wareejiyey wax kasta ayaa lagu wareejiyey maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa lagu wareejiyey buugaagtii xisaabta ku qorneed ayaa lagu wareejiyey xasan sheekh wuu ogyahay uu ku wareejiyey farmaajo maanta midna wax kama hayno farmaajo wuxuu la gariirahayaa shalayna beenlow ahaa marka xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha ahaa dimuqraatikada aabbaha dimuqraatikada oo ahaa shalay beenlow ahaa farmaajo maantana beentii buu la taagan yahay ya waad aragteen wuxuu sameeyey gobolladii isku baabi'iyey waxaan ku leeyahay afkuu isku geliyey dowladdii afkuu isku geliyey qabiil kasta afkuu isku geliyey marka maxaa kuu cad waa qaa'inul waddan maantana waxay keeneen ciddi mareexaan ilaahu ceebteenna astur waxay yidhaaheen annaku yuhuud baan nahay oo maxaa mar hore isku sheeg weydeen yuhuud ma degto soomaaliya waa in ka jafi lahayn mar hore aan ka jafi lahayn oo aan hilfaha inii qaadi lahayn soomaaliya yuhuudu ma degtee maxay tahay waxaad sheegaysa mise gabadha isaaqa austraaliya joogtaad ka maqasheen hadalka waxaad rabtaan ahaadee guura haddaba waddamadan carbeed meel dhan baad haysataan oo been aad ka dhaadhiciseen boqor islaameed iyo faamiligiisii markii aad ka qaxdeen dagaaladii soomaaliya waan ognahay meesha aad joogtaan marka waxaan leeyahay oo halkaas soomaaliya aad ka soo caynaysaan oo waxaan ku leeyahay dowladnimadii aadan waxba ka aqoonin oo rabash aad tihiin oo idaacadaha intaad soo fadhiisataan adinkoo tuugadiinu caddahoo bannaanka ay taallo ayaad ku garab istaagteen farmaajo marka yuhuudnimada aad sheeganaysaan maanta waa cadda yuhuudu wax ma haddo yuhuudu shaqay abuurtaa yuhuudu waxay samaysaa waxa la yidhaha dimuqraatic waddamadan waaweyn yurub iyo maraykan dadka lacagta geliyo investmentiga sameeya waa kambaniyada waaweyn ee yuhuuddu leedahay marka ha isku siminina dad aadan gaari karin ya turkish aa la yidhi timir owna geed ka gaari karin oo wuxuu yidhaha uf marka waxaan ku leeyahay ha isku siminina runtaa inii sheegahayaay aabbihii dimuqraatikada inaan soo celinno waaye waxaana haysa cuqubadii aan ka galnay xasan sheekh maxamuud waa haddaan realitiga ka hadlayno soomaaliyeed haddaan maaragtay xooladaaq aan nahayna waa kaasaa cuqubadii xasan sheekh maxamuud laga galay ayaa maanta soomaaliya haysata aabbihii wadannimada aabbihii federaalka aabbihii dhaqaalaha taasaa haysata xasan sheekh maxamuud adinkaana ka galay cuqubaad ka gasheen farmaajo duufle oo qurbo joogay oo baasaboor ajinabiya watay oo tuug ahaayo weligiis aan shaqaysan 1986 sidii looga saaray hal guri gadan waaye qurbo iyo maraykan dhexdeed ninka shaqaysta 10 guri oo gataa faamiladeenaan aragno kanada iyo meel kastay guryo ka gateen dadna ma aynan xadin marka waxaan ku leeyahay ninka maanta yimid inuu ka maalaysto baahida haysa shacabka soomaaliyeed dhaqaalahooda oo dhaco oo ka taajiro oo guryo ka gata 4 koonos oo waddamada ajnabiga horta hore cuqubadii xasan sheekh maxamuud in ku wada dhacday waa inaad xasan sheekh maxamuud cafis weydiisataan wallaahi iyo billaahi haddaan la weydiisan oo aan la soo celin soomaaliya inayna weligeed farmaajo wax lamida la imaanayo anaana runta inii sheegayo cuqubadii aabbihii federaalka aad ka gasheen waa inaad ka raaligelisaan aabbihii dimuqraatisiya asoo lacaynahaya ayuu qoslahayay farmaajona muxuu keenay inuu corruption sameeyo waa ajnabi u shaqayn maxay ka qabanayaan axmaara koonfur galbeed ilaa hadday dhooban yihiin waay maxay ka qabanayaan axmaara maxay waddankayga ka qabanayaan aniga maxay waddanka soomaaliyeed axmaara ka qabanaysaa yaa dabada ku wata waxaan waa in 24 hours looga bixiyaa soomaaliya dhexdeeda iyo koonfur galbeed inaan lagu arag hal xabo axmaara lama socdaan qaramada midoobay lama shaqeeyaan amisom waa in waddankeenna laga saara dheemankeenni
iyo waxay guranayaan mikrooyinkii ku jiray maaragtay dudumooyinka ayay ka guranayaan koonfur galbeed dhaqaalihii ku jiray oo qaaliga ahaa ayay ka guranayaan koonfur galbeed etoobiyaankii ay teendhooyin ku samaysteen waa wax diyaaradda loo soo riday yaa ka dambeeyey u saxiixay waraaqdan ninka tuuga oo qaa'inul waddanka oo qiyaamay shacabka soomaaliyeed ciidda soomaaliyeed calanka soomaaliyeed waa tuug marka waxaan leeyahay cuqubadii aad ka gasheen xasan sheekh maxamuud waa inaad soo celisaan xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud haddaad rabtaan soomaaliya inay hore u baxdo waa in la soo celiyaa oo waa in loo kacaa oo waa in loo hagarbaxaa oo waa in shaabara loo sameeyaa oo in madidile aan ka tuurnaa maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo waa tuug koonfur galbeed waxaa jooga bilyanis etoobiyaan oo ciidamo ah waxaa la gurayaa dhaqaalihii ku jiray dhulka wax kastay noqdaan dheeman hadday noqdaan geedkii kale muxuu ahaa oo diyaaradaha lagu soo ridaayay ama lagu sameynayay wixii ay ka gurahayaan koonfur galbeed dudumihii koonfur galbeed etoobiyaankiyaa guranahaya marka farmaajo wuxuu yidhi aniguna kuwan waa mashquulinahayaa soomaaliyeed adinkuna dhaqaalaha intaa guran kartaan anigu aan joogo gurta uu yidhi waa waxa uu ku sameeyey gaalada iyo soonaha gaaljecelku ay degaan ood aragtay dhagaxdii dheemanka ahaa waxay sameeyeen wiil yar oo reer mudugahu soo qaaday dhagax oo yidhi dowladdan canshuur siinahaya asoo muwaadin oo dhulka u dhashay oo meesha u ka helan ay waddankiisa tahay ayaa laga qaado xasan calqayra ka qaadeen oo la yidhi yaa waa wiilkusaa la yidhi waa habargidir iyo ka yaa waa sacad ka qaaday asagana xira la yidhi ninkii dhulka lahaabaa saas la yeelahayaa marka maxaan ka hadlaynaa annaga maxaan ka hadlaynaa wax laga hadlo meesha ma yaallaan wax laga hadlo meesha ma yaallaan marka waxaan rabaa xasan sheekh maxamuud in loo kaco in loo dhabar adeego in loo kaco in uu nacafiyo waxaan kaa galnay walaalo cuqubo nacafi haddaan nahay ummadda soomaaliyeed aniga inta igu xiran oo dhanna raalli ay ka tahay waxaan ku leenahay waan kuu hambalyaynaynaa nagana raalli ahow nin wadaada oo shiiq dhalay oo 7 firac shiiq ah ayaan cuqubo ka galnay ma tihid qurbajoog baasaboor ajinabi iyo qaxooti kala yimid waanad soo noqonaysaa nin dambe oo ajinabiyana soomaaliya ma xukumahayo xasan sheekh maxamuudna waxaa ku xigi doona sheekh shariif ma rabno ajinabi dambe oo baasaboor wata soomaaliya kama rabna anagu wixii kaloo loo dhiibahayaa loo dhiibo laakiin nin baasaboor ajinabiya wata dooni mayno xasan shiikow welcome xasan shiikow ummadda waa la qaldaa soomaali waa lagugu diray farmaajo intii caado qaatada ayadoo hadda baarlamaanka ku jirto oo ka mid yahay ninka lagu leeyahay mursal oo ku xiga muudey raggaas ayaa oolba la shaqayn jiray faad yaasiin waa caado qaate walaalow naga raalli ahow walaalow nacafi aabbihii federaalkaa tahay cuqubay soomaali kaa gashay waa ku raalli gelinaynaa 100% waa ku raalli gelinaynaa nacafi maantana waad soo noqonaysaa ballan ilaahay waxaan ku qaadaynaa inaad soo noqoto insha allah biidnillaahi alkariim soomaaliyay عفس ويديستا حسن شيخ محمد تاسع اللي أبا ديمقراطيكا عفس ويديستا أبا فيدرالكا عفس ويديستا ونو ذادا أو صومة أو صلاة سيدا فرماتش قمرقا معبو سيدا فرماتش قادكا معونو سيدا فرماتش العقد روغا لقا قاضي لوغو مشوى تركيو وقادا فرماتش مانا كل بانها هي محكمة بوكو قلها وحن لا يهي نولو حسن شيخ محمود نولو أب يسنجي ماشي أتكلم هذا كان نولو عدالة باطهي سومالا وناق وبفشي ويقرن واين وناقي ما كان عقبال هذا كسو وضا بحضي نكن توقو أولوليا يعيل قبل العقر هادينا هي ساسا آقلك كنا عيسى ما تهدو حسن جوق لها سوماليا شقا لغا أبوري لها dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa garab hal laysiiyo wiilashii isku sheegahayay SYL2 waxaan ku codsanayaa in Soomaaliya meel kasto adduunyada dacaladeeda ka joogtaan waxaan inay ka baahanaa inaad garab igu siisaan Xasan Sheekh Maxamuud shalay farmaajo dadkii igula ololeen jiray maanta ay igula ololayaan Xasan Sheekh Maxamuud anigu farmaajo saas oo ma sii kasi jirin laakiin habar gidirey shabka in ku dhacay waa aragteen nimankii Holland deganaayo nimankii Jarmal deganaayo qatray nala ololay qatray adaa jooga Ingiriiska قف وحتى بيزاني ولا يقانو قطرين لا الأكل أن كأرورنا فرماتش وحول نقصي كبه إني ونقول بيان كلها نن آذن أقونين أو شال ناك ساقف صدق إن المدحوينة كنكتان قال ذي إهد النوادي كقريسين هذين شر إن كل ما بنقدين أبابل كأم وذي واجس لكن ما أنت وحنا هياننا باسبور أجنبي هي سنين نن سومالي ولجس أن كبحين نن أجرجاري شعب كسوماليات يقولوا وحنا هيان نلا صباح ذي نلا راب كل شيء نن بيهني قد كل شيء حسن شيخ محمود علي أنا قلت كاسر مباهنا نكاسر مباهنا هاي هنا لا يقرب استاجو كلمة دان إن الله هنا متعن إلهي أنت تكعب ستان حقي أتكجشان حسن شيخ محمد فرماتشا إنك جوي عفي سلوي ديس
nin kastoo siyaasi oo tuuga xasan sheekh maxamed cafis weydiiso waxaa tiraa madaxweyne beenaa noola sheego kuwii beenlooga ahaayo beenta naga dhaadhicinayo tuugada ahaa ayaa maanta wadanka haysta wadankana xadhaya ila waa tuuge kuwii shalay beenta dadka ka dhaadhiciyey tuuganimadoodii banaanka usoo baxday waa qaa'inul wadan may fahanteen waxaa laga samaystay meeshii dhammeedoo dowladda lagu kala wadi lahaa oo dowladda lagu xukumi lahaa marfish baa laga samaystay marka ceebteena ceebta waalideynta in baa la hastiro adduun weynihii indhahoo nagu hayaa aabbaha dimuqraatikadahaan rabnaa xasan sheekh maxamuud inuu soo noqdo waana soo noqonahayaa insha allah biidnillahi alkariim muqdishooy kac oo gariiraan ku leeyahay xasan sheekh ha loo kaco ha loo gariiro xasan waa soo noqonahayaa ama raba amaan rabinina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبسكرايب هلا صاروا هلا شير قريو هلا إسقارسيو عيدا مدنا وحال الله قرب كينا الله قالوا وكب حيسان بايدا يوحي أو انكسمي نكان جيران نكان جيران وحديدا إنا نتصل جرار وكينيات يعيدا وكاد لا يفرماتشو إنا لله وإنا إليه راجعون تاسع لقد ما أهن إني سكلوا عينا وثرو أسو كين يكو قيلايا مصورا لقد asoo hadal xun yiri waa la iga ballan qaaday qof baa iga ballan qaaday waad ogeedeen waa inii sheegay haddii la iisoo gudbiyo ayna siinaya wiilkaas waa nin wanaagsan oo siyaasi ah oo waagaasna bila soomaaliya ku jiray oo kasoo cararay wiilkaas wuxuu yidhi ninkaas ahaya ninkiibaa wax sii weydiistay wiilkii wuxuu yidhi waxaas waxsan kaa rabaa ii samee soo yidhi haddii aan samayn karo waa kuu samaynaya marka labadii waxaa la isku xiray may fahmaysaan codkii laga duubay kenya asoo qayilahayo wuxuu ku hadlayay farmaajo oo maanta aad villada ka saari lahaydeen nin baa haya maanta muqdisho jooga wiilkii iga ballan qaadana waa loo diiday wixiina waa u suurtageli waayeen odayga inuu sameeyo marka wixii wuxuu ka dhigay rikaato kii farmaajo la qayilaya ayaa warka duubay wiilku alaabta weydiistay wiilku wuxuu yidhi adeero ma awoodo nin weynna wuu ahaa adeero ma awoodo yidhi waxaan marka wiilkii yaraa dhalinyaro ahaa waa la rikaataariyey asna wuxuu soo wacay wuxuu yidhi khatra abaayo impossible waaye ninkii saas ugu yidhi anna waa u waayey wuxuu u raadinayay marka dadka noocaasa ayaa wadanka jooga farmaajo warar badan oo waxa laga hayn doonaa dad badan oo maanta u maleeya oo xoolo ku cunhaya hadallo ay ka duubeen oo isbishal ayagoo la qayilahaya afkiisa wixii kasoo baxayay maalintuu kursiga ka degto waaba ka deganhaya hadduuna ka hor ka degan februarina laisla gaari maayo 8 farmaajo wuxuu wadaa afgembi wax la yidhaaho abaabul rag baanu kula teliyey waxa la yidhi siyaasiyiinta qabo siyaasiyiinta aruuriyaa la yidhi warka waana wax hadda xamar ka socdo ilaa xalay guux uu ka dhacahay mi fahanteen marka doctorno waa la iska ahaado dhagaha la taago Soomaaliya ninkaan god buu ku riday waxaana ka dambaysa oo dalmigaas iskale waa Fahd Yaasiin iyo qolada la leeyahay qadar Soomaaliya mugdi god curahay galiyeen ayada dhan marka Xasan Cali Khayr cabsiya u geynaysa inuu hadlo marka don't worry hadda anaka sheekadii waa la fahnay Xasan Cali Khayr farmaajo haduu dhahay wax ma gudbinayo walaa waraaqii waa la gudbiyay farahay ku hayaan madaxda Soomaaliyeed marka waxaan ku leeyahay waa lagu ogaaday wadanka qatarta ay ku waday annagu ilaa hadda ma ogin waa la wada aaminsan yahay waxa lagu leeyahay siyaasiyiinta oo waa wada qaracmeen wixii uu ka hayay iyo warqadii uu saxeexay ninka lagu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaarka la cunsiinaya February ma gaarahay sheekadayda ogaada February 8 mala ana waligay ay ii sheegahay Khayr waa baxaya farmaajona waa ka daba baxaya waligay aan dhihi jiray inaan la gaarin marka waa in salaami programka la share gareeyo subscribe ha la saaro hadaladiinana soo qora aad baad u mahadsantihiin gabdhihii oo xalay hadaladooda arkay gabar waliba waxa ku jirta aad iyo aad aan u maleeyay inay siyaasadda u dhagan ugu shahay oo soo qortay waxyaalo badan marka waxaan leeyahay aabaha dimuqraatiga waa soo noqonayaa xasan sheekh maxamuud iyo awalka walaalkay macaan waa lagu soo celinayaa Soomaaliya ku jecel Soomaaliya ku rabta inta Soomaaliya ku rabtana nin wax ka qaadi kara iska yar jilac iyo jareer waa ku rabaan hawiye iyo daarood waa ku rabaan nin wax ka qaadi karo raxan weyn baa ku ooyeysa maanta walaale aabihii dimuqraatikada tahay you are welcome وكسور دوينينا ونكو أولنا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل إسقارسي شير